meel 25 qof halka meel looga dilay dhowr iyo 10 qof oo kalena meel kale looga dilay so today xaaladana waxay taagan tahay like it or not jeclo ama iska daa يعني farmaajo nama siinayo wax optiona nagalama tashanayo muqdisho niman rag ah iyo dad annagoo kala dartood ayuu uga soo cararaya iyadoo magaalo madaxdii tahay wuxuu aaminsan yahay dadka reer xayo ee magaalada muqdisho degan inay ka hor yimaadeen in ay dulmigiisa diideen inay la dagaalami karaan inay cod leeyihiin inay dhulka iyaga leeyihiin halka ka salaam aritana halka reer baydhabo oo uu madaxweynahoodii afduubtay oo uu amxaara u dalbaday oo amxaarada ilaysay dadkoodiina uu hambalyo korkooda ugu diray uu haddana rabo in magaalo madaxdoodii uu soo dego dad wariyayaal ayaa ka hadla Facebook live oo idiin sheega oo idinku yiri dad farmaajo jifadiisa ah ayaa villa baydhabo lagu soo aruurinaya habeen iyo maalin ciidamada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo jooga ay ahayn kuwa boqolka dadku dilay bema sheegna ciidamada maanta ku jooga koonfur galbeed waa kuwa boqolka waagi maxamed siyaad bari ku dilay bal kalsoonida isku qabaan fiiri ayagoo shalay tolo dadkaaga leynay ayay maanta waxay diyaar u yihiin inay dhulkaaga qabtaan mar labaad dad shacab ayaa dhanka gada laga soo daadguray waa la idin sheegay 100 jeer la idin sheegay baydhaba la soo deji maalin walba wiil reer baydhaba ayaa dhinta maanta ugu dambeysay wiil reer baydhaba ayaa dhintay askari ayaa dilay ma ka soo banaan baxdid ma ka hadashid juuq kama tiraahdid haddana maxaa lagugu sii daray farmaajo baydhaba u soo guuray sandulle mana kala tashanay mana ku weydiinayo okay dad badan oo farmaajo reer tolkiisa ayaa aniga markaan live ka qaxayo sida qof waalan waxay igu yiraahdaan raxaween weligeedan gumaysan jirnay adu mashalaad dhalatay haddaba ilma adeerayaal ma accept gareeya ma iraahdaa waa runtiin iga raali noqdi maadaama idinka daba qayliyay looma baahnayn gulwadow farmaajo aabihii raxan weyn gulwadow farmaajo aabihii raxan weyn kaalay soo deg dalkaanaga dadkaanagana lay cidna deen ku raacan mayse dullinimada diyaar baan u nahaye duud la rarto raxaweynaa leh marka duud la rarto ada iskale magaalo madaxdii markii dhibaatada lagu badiyay waxay noqdeen dad qabiil ah xaqiiqdayna farmaajo faraha ka saareen and that's why ayuu farmaajo meesha ooga soo cararaya laakiin adiga oo qowmiyad ah misana qabiil ka sareeya awooddaasoo kale ma lihid mana yeelanaysid anigaa shalay toolo kuu qaylinaya kuu hadlaya baladoo fiirso anaa kuu qaylinaya kuu hadlaya inta dhagxumo iyo cay iyo aflagaada laygu soo gaarsiinayo waad ogeyd Nelson Mandela wuxuu yiri if you are black please don't be smart if you are smart please don't be a hero if you are hero baladoo fiirso hadalka ugu dambeeya please never ever try to speak out hadda anu marka maanta maxaan taaganaha anigu may abo habeen waa ma soomani na soomanid na aamus na hayeel na yaa diinta ilaahay ara shut up waa saqda habeenimo adoo dad saqda habeenimo sooman tahay anu saqda habeenimo ma soomani xaqiiqda in laga hadlana lagama soomo xaqiiqda lagama soomo ramadaan ba aad ciidanka maxamed siyaad bar markay batariga dumarkaaga ku guraayeen 2 ramadaan waliba 2 sano ayaa raxween dumarkooda batari lagu guraay ramadaan war video yaanu idin soo dhignay dadkiiniyo ooyaya oo leh maxamed siyaad barana baabi'iyo waana lagu tuntay maantana waxaa taagan tahay guulwadow farmaajo aabihii garashada kaalayo dhabarkaa naga fuul adeer ma damiir baan idin soo iibiyaa ma dadniman duurka idinkaga keena sideen dadka idinla simaa aniga xaaladayda waxa waaye hanjabaada lagu soo dayay markii ugu horeysay gurigaaga imaanayna waa ku qowracaynaa waxba waa la iga tari waaye
waxa ku xigta dawladdan kugu dacweynayna waxba waa la iiga tari waay waxa ku sii xigta lacag qaada oo naga aamus waa sii socon weysay hadda waxay maraysaa 10,000 oo qof farmaajo Facebook-gayga inuu soo diro. Do you know why? Ma ogtahay sababta? Because of you. Cid ani rabta ma jirto. Because of Koonfur Galbeed. Because of you. Hora kugu sheeg. Nelson Mandela hadalkii uu yiri raaxan weyn bay taagan tahay. waxay taagan tahay maanta farmaajo taagan yahay. If you are raaxan weyn, don't be smart. And if you are smart, don't be a hero. If you are a hero, never ever try to speak out, ayuu ku leeyahay. Sabab aniga hadalkayga ma dabba maya, laakiin because of you baa la ii kaa aamusiyey. waayo anigu waxaan ahay mid taariikhdaada iyo aabbahaagii shalay la gowracay dadkaagii la baabi'iyey ku soo xasuusinaysa. anigu waxaan ahay mid kule ha ku noqonin dhibaatadii shalay ku gaartay. yaasiinka salaam alaykum, I love you so much. dhiigaagaan shinsanayaa. waxaa tahay marka adiga dhibaatada aniga iga kaa haysataa waxay tahay anigu waxaan ahay the only person oo xasuusan xanuunkii Siyaad Barre. halka uu farmaajona ku fikirayo Siyaad Barre siduu ugu guuleystay inuu geda adigoo raaxan weyn qoomiyadda raaxan weyn intuu boqol ku duugo oo ka faramarooji ayuu farmaajona wuxuu maanta diyaar u yahay inuu Villa Baydhabo soo dego. diyaar u yahay farmaajo. sabab aduu ka arkay. adiga ayuu kaa arkay. cid kalood eersanaysid ma jirto. adigoo raaxan weyn ayuu kaa arkay. maxaa adiga farmaajo agtiisa dacas oga tahay? Have you ever asked that question? Have you ever asked yourself? Please, you are not a donkey. You are just a human being. Below Adam baad adigu dameer ma tihid. Black Africans hal mar intay kaceen ayay gumaystii caddaa iska saareen. How there ayuu farmaajo maanta u soo hawaysan karaa inuu soo dego Baydhabo oo ciidamo isaga soo hormarin karaa? How there maxay tahay kalsoonida intaas leeg uu qabo farmaajo? adigu ka arkay. adiga ina adeerkayo ka arkay. adiga ina abtigayo ka arkay. adiga ila dhashayo ka arkay. adiga waxaad ilowday SDMA kaha ariiro surun. adiga iloobay boqolkii dadkaaga iyadoo Ramadaan tahay loo duugay. adiga iloobay wixii shalay ku qabsaday. daraad bay aad markii gado guryaha dadka intii loogu galo lagu gubayay. gurigii dadka lagu gubay reerkii lahaa xataa meydkooda lama duugi jirin. guriga dhexdiisa intii carro lagu kor shubto oo la saas loo dabalo reer cabud waaq laga keenay la dejin jiray. And tomorrow Baydhabo noqonaysaa. wallahi Baydhabo noqonaysaa. oo billahi Baydhabo noqonaysaa. oo tallahi burha ka bay noqonaysaa. oo wallahi xudur bay noqonaysaa. af aad ku sheegata ma yeelan doontid. dadnimo aad ku hadashid ma yeelan doontid. guriga intii lagu gubo war ma inkirsan tahay in dawladda Maxamed Siyaad Barre guryaha idinku gubi jirtay? ma inkirsan tahay qof aysan familkiisa gacanta Siyaad Barre ku bixin nuguma jiro? ma inkirsan tahay? ma inkiri kartid. waa beenta. waayo aabbaha baa ku dhintay, adeerka baa ku dhintay, eedada baa ku dhimatay. maantana Baydhabo waayo. Siyaad Barre gadu ku guuleystay Garbaharey guryaheeda ilaa hadda dad cabud waaq laga keenaa degan. aw dadkaagi deganaa way ku dhex duugan yihiin. lafaha laga raadiyo guryaha gada ku yaalo oo dhan oo degan yihiin farmaajo jifadiisa. lafaha laga hoos raadiyo. Somaliland baa lafa soo saartay ben iyo huf. gadoo dhan wada lafa raxan weyn ah. guri kastoo la qodo wallahi lafa ka soo baxaya. aduma is weydiisa xaggay ka yimaadeen? by the name of government. magac dawladeed buu ahaa. and then maanta wuxuu farmaajo ku isticmaalay waa the name of government. farmaajo hamigiisa wuu ka soo xirtay. xamar iyo reer xayow. hamigiisu waa adiga. waxaad rabtaa in uu ku guulaysto missionkiisa. nothing more. waana sababta Ross Murgus loo aamusiinayo. waayo waxaa laga cabsi qabaa SDMA kaha ariiro surun inay ku guulaysato. ka fikirtaas.
الله كعبس وهدان إلهي كعبسن الماضي كان كعب سنايا هدان إلهي كعبسن الماضي كان كعب سنايا ومايا إلهي بان كعب سنايا حقيقة إنها تشيكت هو الصدقة كلمة الحق صدقة أنا مدهن إلهي بايري ما بينبا إن محمد سياد برعيدن كيسو رمضان كقبليه إن الصومان أي عراريا إنتي ساس السواق قبطان أي كفصدان بتريقا كوكوري جيرين ورما بينبا عريار كونفور قلبيضو يديه كروا بين إن رمضان كبرتن كيسا سقرا مدي سياد برا وطولني مدو وصو أرور صدو عيدن كيدين كاقدكتي إن أي قبليه إن إنتي كفصدان بتريقا كوكوري جيرين وريادا ما بينبا عاونا هويدا bay sugaysaa wiilka baydhabo jooga hurdow waa tijaabaanu idin niri maalinkii mukhtaar roobo la afduubay السيد شيخ مختار روبو علي أبو منصور رضي الله عنه بالدنيا والآخرة اللهم أرضى عنه بالدنيا والآخرة رسولك إلهي ما أنت صادري رسولك إلهي ما أنت قلت لك إنه كان فرق البيت بالباديو شيدانك دجالك فرماج أو أفدوبتي مختار وطلعان باكو هشي دادكاغوسي مرون بيك عدونان مختار روبو مالك لأفدوبناي وان إذن لها الله waxaan idinku iri wartani waa tijaabo siyaad barre wuxuu idinku tijaabiye generaaladiina ayuu xirxiray uu laayay waad ogolaateen baraad fiiri generaaladii waqtiga siyaad barre uu laayay ee gardarrada cad uu ku laayay awlaadoodii baa nool tijaabay ahayd baydhabo dadkii lagu xirxiray ilaahay ha u naxariisto iisha marguus baa ku jirto eedaday ah tijaabay ahayd ولا إذين صد داي وات آمستين and then وحلا إذين كنت تجابي ضد كينا باديها جوجا إن هالو دلو واجد الدولة دي محمد سياد برا تجابي أيد وات آمستين هذا التانج أم حار إن إذن لا داعي هيد وادنا آمستين تجابي هيد وحكلو تجابة إن هال مالو والبعيد كون فرق البيت إذن كدلان وتجابو waxaan se arkaa aniga oo ii muuqda farmaajo boqol idin duugay guryihiinana dad cabud waq laga keenay la dajiyo baydhaba adima lihid baydhaba may ma lahan qoomiyada raxaweyna ma lahan hadiiba farmaajo maanta uu soo niyeystay gabadhiinuna guur ma lahan wiilka raxaweyn walaashiis guur ma lahan dadnima ma lihid farmaajona tan wuu ku guulaysanaya anaa hadda idin leh farmaajo oo ka dhashay dad aan dhamayn hadii la isku soo dardaro 1 million ayaa wuxuu ku guulaysanaya 1 million kaas inay guumaystaan oy rartaan oy masagada ku shukulaan mar labaad 10 milyan ee raxaween mar labaad ayay taas farmaajo uu ku guulaysanaya maxaa ku cadeynaya waxa ku cadeynaya farmaajo maanta wuxuu u soo guuraya baydhabo villa baydhabo ayuu rabaa farmaajo inuu maanta soo dego ayadoo mukhtaar dhulka hoostiisa uu ku jiro mukhtaar dhulka hoostiisa uu ku jira farmaajona magaaladiisa ayuu rabaa inuu madaxweyne ka noqdo hadiiba siyaad barre uu ku guulaystay inuu boqol ku duugo gadana adoo soo jeedo uu ka farmaroojiyo maxaa u diidaya farmaajo adigoo noocaana maanta inuu ku guulaysto inuu baydhaba boqol intuu iskugu kiin duugo haddana mar labaad oo dadu cabud wax ka keenay soo dejiyo maxaa diidaya ma aniga qaldana markii la ilaha dadkaad la hadlayso weligood baanu gumaysan jirnay ma aniga qaldana tol beelay dadnimo beelnay oo damiir beelnay dulmiga gumaysiga u dulqaadamayne hala dilo ninkii yidhi robow buu ahaaye daacadiisu aaminay diiwaanka qaranku baaldahab ku leeyahay dulmiga farmaajana hala diido tiitiri
anigana haaye naftaydana aaminay tolla-aan darteedna saqda dhexe habeenimo hamigaygu dhimanaya tolla-aan darteed ayuu hamigayga u dhimanayaa midkiina midka kale ma dhaamo midkiina midka kale ma dhaamo baaba'nay oo hoognay wiil ma lihin rag ma lihin oo dumar ma lihin rag ma lihin oo dumar ma lihin ma maanta ayuu farmaajo rabaa sidii maxamed siyaad barre inuu kuu galo markaasaad raalli ka tood sugaysaa ma taqaanaa waxa ku sugaya anaa kuu sheegaya isug anaa ku tusaya isug wax yar dulmiga gumaysiga u dulqaada mayne hala dilo ninkii yidhi robow buu ahaaye daacadiisu aaminay diiwaanka qaranku baaldahab ku leeyahay waxaan kuu sheegaya ma garanaysaa doqonow anaa kuu sheegaya isug markaade The move into the interior was the first step in turning the base into a staging area for an operation to relieve the town of Baidoa. waa diyaaradihii adduunka waxa safka ku jira saas u qalqalalay waa dadkaaga waa intii maxamed siyaad bare SDM ay ka kicisay Not receive help for at least a week. The troops did not arrive, and so the technicals came out and started looting. ma aragtaa dadkaaga noocay ahaayeen markuu adduun weynaha u keenaya raashinka ma ogayd bakaartaadii waxaa ku faanay Morgan Baidoa has become an increasingly dangerous Wild West town. Threatening and looting, they are racing to take advantage of the aid agency's weakness before American forces get here. So every afternoon we have an upsurge in the violence. This person may well be dead or dying. Definitely dying. maanta waxaa waajib ku ahaa qof kastoo raaxweyn inuu yiraahdo diidii mayno geerida intuu cadowgu joogo dacladeena kama dirnaxayno degta qarigu noo suuran diidii mayno geerida intuu cadowgu joogo dacladeena kama dirnaxayno degta qorigu noo suuran inaad degta qoriga suratay ahayd maanta at least si aysan tii shalay kugu dhacday aysan kugu dhicin at least ugu yaraan laakiin kuma feejignid mana ogid that's your problem dad walbo siyaad waa uu dhibaateeyey adoo kale nolosha lagugu aasaa ku fiicnayd way tiri farxiyo cabdi diiriya farxiyo way kuu gaartay rag baad leedahay adeerkaabaa farmaajo ah nasabnimaan kuu qirayaa waayo maxamed siyaad barrabaa adeerkaa ah farmaajaa adeerkaa ah anigu adeerkay waa cali wardheere let me be so clear ina adeerkay waa xasan xamaali xasan eelay so rag la-aan aniga haysa rag ma lihi aniga raggii aan lahaa ee cadowga iga kicin jiray ee dhulka ii ilaalin jiray ee baarqabka aan ku ahaa way dhidhinteen sheekh abuukar waa u dhintay xaabsade waa u dhintay adeerkay aadamadooba isagaa waayeela algeesi shaati guduud carradu ka hoos maray so anigu rag ma lihi gabar walba oo raxan weyne oo gabar farmaajo adeerkeed yahay ay aflagaadayso waa inay hoos fiirisaa
أنا هذا كل شيء يسببته أي أذكر وفرماج أذكر وسياد بري هذا ما أذكر بعد هذا where didn't ten مجاهدين تادي where didn't ten زوبة واو دنتي حبسة واو دنتي شيخ أبو بكر واو دنتي شاتي قدود واو دنتي هذا مذهبي واكنا سوى وايلو ملكو فرديا أو وحبك لوجين رق مليهد قبل الرحم وين رق ملها وحاسو جيسة كنتن نينو مريحان انتي كفسة أي فوشين بتريكو قران that's what you waiting for هدان كل شيء يا دad قبل تاي الرحم وين تاي أما الشباب راعي لهيدا أما هويقو حوتني مو ويديسن لهيدا عرر أو كونفول قربت كعرر كوي بتريق دوين كاكو قرو جرا يمد كوي هو يدا كفسن جلو دلي جرا يمد رقي هاي كو عني جرا يمد قبل أي عرر قبل كستور رحوين كونفول قربت جوك تاي بريتو على بعض هذا مريها كو قاضع عرر هدا دو قادين قحوتني مو ويديسن كرتو ويديسو أحمد مذوبي ما أركتي قارسة دقح بور سومالي وين قبل الرحم وين تول مليهد ناكتاسا كوسو سعتا فرحية ديريا لوسا وذا بيدبو أيضا بقرات كانو قنايسا أذيركت فرماجانا وقارسيي أمحارو كوسو كرايستي إنتان بتريق لغوغو قرين أو والله أيضا رمضان تاي أضو سومانو نفت العرارايا لبادو الغوط ساس انتاي كوكا القبطان رقها قرابة ساس انتاي عنان قمريق عبجري حشيشك عبجري وذا قاندريقها عبود واقلقاقا سو كحينين هادبا اسكا عرر عرر قبل كستورر كونفور قلبيضاي عرر رق مليهد نمان كماشان جوغو إنو فرماج اللايه وصو سعدان نمان كان إياغا بقل هلو دوغو إياغا هلالايو هويو وطاقا عرر قبلها رار كونفور قلبيضاي هبر قدرق ويديست قحوتي نمو والله ويدين قابلايان أو ويديست قحوتي نمو وقاذين أو إساق آذو هرقيسا قلا أرض قبلها رح وينو ماشي كعررة سومالي وين رات سذا والله تول مليهدين والله فرماجة واكا أو والله واكا أو مريانو دانو يدين سوغورت أو والله عبد واقيا قذل يدين كان الرقها كوي بطريق يدين كو قرجرا لكين نيني دي كبت بادية ما هاي ستان قبلها رار كون فرق البيضة مردم بأني أفكيق لغا ممقلايا كعني منو قبلها وحان يدين لايهاي هذا سوماليلاند هذا جيبوتي هذا هوي ماشا دونتين هذا كتاقا كونفور قلبيد رقمالهن طلاي لا عررة قبدو عررة زياد برا كان مدامو عررة قبدو كان زياد برا يدي مدامي عررة قبدو فرماجة واكا قبدو فرماجة واكا والله بطريقة الذين كوكورا والله إني من حشيشكي خمريك وذا عمال الذي سوى كو حبدا نال كو دفتا دليانا أرضي ذا مقدشو والله إني سنة ذي كان نحين ورتاريخ يوتيوب كقالا قبدو دابيتي وما يصير بيدا ب 1992 كقرة والله وذر كيسان أو بالله وذر كيسان قبضوا رق مليهدين قبضوا فرماجة واكا قبضوا عرارة أتقى هبر قدر يهوية والله سومالي واي قحوتني ما يدين قابلة يا عرارة قبضوا رحوينة قبضها رحوينة هرقيسة هذا عرارة لاسعانة هذا عرارة ورقاذا دقح بوري قبر الدهر سومالي وين وقحة رقم الهيدين مالي والبكو مقدش اللي قد بينا وبرتن كذا حبض الله دعاي واني من راحم وين يا أصهيلي يا كعلي عيدنا سواد قرتن ما شاني لما تكفر ما جمركو بينا وبرتن كذا ذي كان يا كهالي عيدنا يا يري هالداي عيدنا قبدو دي ما كان إلا الله يسوغايان قبدها راحن وين وعاو شيغايا والله كونفور قلبيد كسوغن نيمانكا إذن أكتاغن نيمان ما أهان فرماجة مركو يماتي ساقا بقل يسوغو دوغايو لكن إذن كالفين لا عرارة وإذن سلع الدلايان محمد سياد برا وقت كيسي واد حاسوستان رمضان كا قبدها بطريقة لغو قوري جرى إياغو سومري أويا ولا الله با مدح لغا كونجرو نجرى دقلي مرفل سومالي ما أهان والله كوبي با إذن سو صعدا كوي المهودي با سو صعدا كوي المهودي beeraha laga ballan qaaday baa soo socda carara ka taaga gabdhow nimankan hala laayo hala duugo
mukhtaaro la afduubtay fiiriyaan maysan ka hadlin iyadoo 25 qof bay dhaba la dhigaysan ka hadlin berrina hadli maayaan markii bateriga laydinku guro gabdhow carara ka fakada wallaahi gaani nin la dhaho in kaloo hebelkaa xuseen la dhaho waxaa jiri jiray ahaa farmaajo ilma adeeradiis oo wallaahi soo waxaad garateen maaha labadaas nin ma aragteen caan bay ka ahaayeen deegaanka koonfur galbeed waxay caan ku ahaayeen gabdhaha 10 sano ka yar baa loo geyn jiray maysan cuni jirin gabar 10 sano ka yar dhuuntoodii kamaysan degi jirin raaxan weynay beedofiiladii maskaxda ka jirnay caruurta fuuli jiray waa kuwaana wallaahi waa kuwaana farmaajo wuu idiin soo tashtay tol idinka celiyana ma lihidin been idiima sheegaayo qaasatan gabdhaha faamilkaygaa la hadlaya cali wardheeraa adeerkiina soo afanteen ma wallaahi cali wardheeraa adeerkiina isagaa idinka gadgadaayo oo billaahi cali wardheer isagaa idinka gadgadaayo oo tallaahi isagaa idinka gadgadaayo raxa weyney carara ahana kala harina waxa baryahan dhan ma aragtay Facebook lala ordayaa harin gabdhaha harimadow carara tolkiin raaca gabar raxan weynaysan bay dhaba ku harin wallahi general mahad wuu idin gadgada oo wallahi cali wardheer wuu idin gadgada wallahi naaris inuusan idinka naxaynin wallahi usan carcas idinka naxaynin wallahi usan eela idinka naxaynin wallahi usan shiiquna idinka naxaynin kulligood lacag ay rabaan soo cagadateen ma haddaba waxaa idin sheega gabar kastoo raxweynay Soomaali weyn waa walaalaha dadka dhan wada farmaajo maxamed siyaad bari tolkood ma ahan kuwa dhulkiina idinku haysta idin gumaadaya dadku ma wada ahan haddaad Djibouti tagtiin dad Soomaaliyeed tiin way idin soo dhaweynayaan haddaad tagtiin ma aragtay haddaad tagtiin Muqdisho waa dad Soomaaliyeed waxay qabaan la qabaysan kii qarax ku dhimanaa inuu ku dhimanaa kii noolaana inuu noolaana illa iyo cadaada aada iska orda gabdhaha tolka leh ee ragoodu ay garab taagan yihiin oo dhibaato kasta ka ilaalinayaan ku dhex dhuunta waa ninka karti leh gabar soo magan gashan laguma hor cunaayo waa idin baryaaya gabdhow waa idin baryaa ka carara raxweyn way isdhiibtay raxweyn dadnimadu way ka tagtay waa finish hadduu maxamed siyaad baragada gooyay oo uu ku guulaystay farmaajona baydhab uu goynayaa uu ku guulaysanaya 10 milyan raggoodiina waxay diyaar u yihiin inay madaxa horsadaan yaaca Jubbaland gala Sheekh Axmed Islaam waa nin muslim oo Soomaaliya oo Soomaalinimada ku weynta u tag ka carara dumarka iyo caruurta haddada waxaan leeyahay haddaan mar badan idin iri dhagaxa tuura maanta idinma dhahay waayo waxaan quustay markii la yiri farmaajo wuxuu ma aragtay yiri hala ii dhiso villa baydhabo Muqdisho hawiya uga soo cararayay ii dhisa villa baydhabo markaasaan quustay waxaanoo dhan waxay ahayd qorshe wallaahi farmaajo uma socdo Muqdisho ma raba reer xaayo waxba kama qaadi karo rag ay leeyihiin soo afanteen ma wuxuu u socdo uu u dig ii damleeyahay waa idinka soo afanteen ma United Nations idinka fujisan idin ma heli karo hadda idin sheegaya waa United Nations ku wada ku daaleen United Nations Soomaaliland u soo gurmatay maxaa idinka halkii shalay toolo Soomaali laga qaada idin dhigay United Nations hargeysa u gurmadeen iyo SNM isku filaaday dhan maanta waa idin soo gaarnay Puntland nimanka SDDF mal dhijir ay u gurmadeen isku filnaaday dhan maanta waa idin ka soo gaarnay USC u tageen isku filnaaday dhan maanta waa idin ka soo gaarnay laakiin annaga SDM UN way not timid wayna caawiyeen daaway noo keenan wayna naga tagaan oo isku filnaadeen dheheen annaga isku filnaan weyna godkaas dhigna annaga gelinay maalin kasta UN kuma caawinayso maalin walba cidna kuma badbaadinayso rag malihin nin mukhtaar robo cali abu mansuur nin noogama dambaynin mukhtaar maaliki la afduubay maaliki mukhtaar la afduubaan dhimanay ba'nayoo hoognay Muqdishaan ka soo guura baydhabaan imaana way iska caddahay su'aalna kama taagno Soomaali ma tihid buugiisay kugu qorantahay Soomaali ma tihid marka waxaa idin sheegayaa kulley Soomaali baan aqaanaayo marka sidiini boqol la idin duugo oo batariga la idin ku guro Soomaali waxay idin dhihi inta u tagtay bariisiine
inta uu qaxdo oo u cararto waxay leedahay waa raxweynta masaakiinta ayoo soo qaxay bariisay siine Soomaali intaasay ku haysaa wax kale ku haysa ma jirto haddaan idin sheegaa gabdhaha raxweyna rag ma lahan hadday rag leeyihiin farmaajo Muqdisho baydhabo ma soo haweysteen dulmiga gumaysiga u dulqaadamayne hala dilo ninkii Mukhtaar buu ahaaye geesinima aaminay diiwaanka raxweyn baldahab kuleeyahay dulmiga gumaysiga u dulqaadamayne hala dilo ninkii Mukhtaar buu ahaaye daacadiisu aaminay diiwaanka qaranku baldahab kuleeyahay waxaa jiro nin al-shabaab ahaa oo farmaajayna adeerkiisa oo isa soo dhiibay 3 bari markuu banaanka joogay generaal laga soo dhigay xagee la geeyay ciidamada xudur waxa la geeyay ee dawladda militariga xudur ee dawladda ninka xukumo waa nin al-shabaab aan isbuuciyo ka soo maqnayn muxuu generaalnimadu ku helay waa farmaajayna adeerkiis maxaa loo tashto loo heshiiyay oo al-shabaabka la isaga soo qanjuruufanaya waxaanu ognahay sida qalalaasaha ay u bilaawtay baydhabo ee farmaajo baydhabo ugu duulaamay boqolaal nin oo farmaajo jifadiisa inay ka soo baxeen al-shabaab oo kulligoodna generaal laga wada dhigay automatically maxaa keenay al-shabaab baa waxa loo diray akhbaar war waxa la yiri qoriga ana idin sharciyeynaa waxa dishiina ana idin haaya oo cidina idin qabsanaynin imaada ana idin baahan buu yiri farmaajo tolkiis al-shabaab uu oga yeedhay generaaluna ka dhiga koofiyaduna wada galiyay yey farmaajo marka tolkiis u yihiin generaal adigay generaal ku yihiin gabdhahaagay bateriga ku guraayaan adigay generaal ku yiri boqol ku aasayaan it's just you no one else waxaan aad oga xuma oo aad aan oga xuma Mukhtaar Robow Mukhtaar waa geesi libaax raganimo leh wuxuu ahaa nin diyaar u ah 10 milyan badbaadadooda nasiib darro Mukhtaar isaguna muusan iibsan Mukhtaar isagoo diyaar loo leeyahay 20 milyan miiska u saarantahay oo la leeyahay bax qadar aad ka tag Soomaaliya oo dhan ayuu diiday Mukhtaar nama iibsan laakiin annagu waanu iibsanay iska dhaaf isagii tuu nugula dardaarmay ayaanu ka tagnay Mukhtaar ra'yigiisii ayaanu dhulka dhignay nin dhintow danahaaga u dhimatay tagta nin dhintow dantaadaad u dhimatay soo markaa Mukhtaarna waxaan leeyahay ilaahay jannadahan ugu kulmiyo simple as that waayo ninka maanta farmaajo uu baydhabo ugu soo guuraayo ee raaliga ka ma kula tahay in uu badbaadin karo Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur may waayo wuxuu badbaadin waayay xeradiisii meeshu barkinta dhiganayo seexanay nin badbaadin waayo wallahi usan badbaadinaynin wallahi oo billahi oo tallahi usan badbaadinaynin Mukhtaar number 2 dhalinyaro isxil qaanta ayaa jirta oo RRA la baxday gooni u istaagtay wax dhacayna ma anficin dhahda intay ku dambaysa dhalinyaradaas garab iyo gacalba way waayeen laakiin aniga waa u hambaliyaynayaa waxaan ugu hambaliyaynayaa in adeer idinku igamiinaan oysiin dhalinyarada reer koonfur galbeed ee new RRA igamiinaan oysiin abaal baad igu leedihiin waad noo tabasho gasheen waad naga naxdeen waad istaagteen waad dhiidhideen dadkeena lama laynaya dhahdeen dalkeena lama qabsanaya dhahdeen waanu dagaalamaynaa waan idin badbaadinaynaa laakiin I'm sorry halku Mukhtaar maray baad idinkuna marteen
وكحمها هدب أودياشي نمانتا صحيحان إنو فرماجة ويمادو بيدابو هورينو أصوتو بقولن أو جفديسا أو وضع الشباب هادا كسوودا بحمد بالموق والله إنو سنجرن والله العظيم نن هال بالفرماجة إن أذيركيس أو شباب كسو بعيو هال بالشباب موغن مجرو شالي كسو بحان مانتانو واسراكيشو كونفور قلبات إن هذا هتاتا يو أراري من فضلك شرفكو دمو موت مثل الأسد ولا تعيش مثل الكلاب ودم السيد اللي باحو كلا انت تقولنا ولان الهيد سيد ايوهو كلا ها اقولانين ها سوغين inay odayaashii maanta shirkada iskugu yimaadeen yiri raali baanu ka nahay farmaajo imaanshaalkiisa inay adiga ra'yi kula qaataan waxa ku soo xasuusinayaa waagi SDM ta ilmaade real xabsade qorigiisa AK47 ku watay hal qoriyo watay wuxuu garab ka helay dhalinyaradii digil iyo marfle ee ahaa militariga nin walba hal qori iyo hal bosh buu watay howdkaas isku balansadeen وإسرائيل SDM كها أريرو سرون أرلاذون ونيله SDM كها أريرو سرون أرلاذون ونيله وكوكول است سو حلقة يا بنيو أراري إلهي حق وأركا إن الله مع الحق إلهي حق مرنا بك مسيجستو مركا إلهي إنه قرب كينا قلو أي على قيابة وعاجل دقالك دعي تركيا واقي عثمانيين تكدب مركي قميسي تركيا أي أفكا لقاش لأن يراد قميسي ديد كاها أي تركيا وحاكا قرب دقال لم يجري وحبتك أكريد يجري عثمانيين مجاهدين توذي هيستوريا سويا له ورادين كرتين عثمانيين أيا كقرب دقال لم يجري reer aakhiraad iyagoo ah ayaa rasaas aan la arkayna lagu tuuri jiray nimankii la dhihi jiray gumaysta ee waqtigaas dhulkaas tagay niyo arare xaq baad u dagaalamaysan in walaasha la kufsado la dila diidan tahay waxa diidan tahay in sida siyaad bar waqtigiisii 10 iyo boqol dadka loo duugo waxa diidan tahay hooyada iyo walaalaha in gurigooda intii lagu gubo oo lagu duugo hadhowtina cid abud waq laga keenay la soo dejiyo xaq baad u dagaalamaysan al xaq wal ard wal sharaf wal maal عرضيغا wuxuu ka kooban yahay sharafta iyo maalkaaga iyo ma aragtay الشرف والعرض والمال iyo cirdigaada saddexdaas ayuu ka kooban yahay soo marka adiga dad sharafkaaga iyo karaamadaada iyo badbaadada maalkaaga aad u dagaalamayso ilaahay wuu kula jiraa in allaha maca alxaq waxa ku sheegaya dhalinyaradiina maanta istaagtay waxa taagantiin booski xabsade ee SDM ta حابسده قربكيس ugu sheekh aadan madoobo ahaa قربكيس labaad wuxuu ahaa ninkii la dhihi jiray sheekh ma aragtay sheekh Abubakar illa waagi dambe uu gadaal ka soo galay xatee shaati guduud ayadoo waqtigaas ay tahay waqtigii la soo xoroobay waagi araarada waad xasuusatiin daynuuna shaati guduud cidna kamaysan filanaynin hal mar uu ka soo istaagay xabadana ka riday markaas ay soo daateen xabsada iyo ay soo galeen baydhabo markuu daynuuna difaac ka xirta soo markaa in ay iyaga laftirkooda ka soo kacaan qubuuraha ilaahay agtiis waxba kuma ah waayo oday waad weydeen mujaahidiin garab istaaga waad weydeen mid gabdhihiina badbaadiyo waad weydeen maalin walba qof baa idin ka dilaya baydhabo abaarta dadkina is cunaan bay u dhowda warayso haday dadkaaga baydhabo joogan abaar daraaddeed dad baa gaajo u dhimanaya villa baydhabo gadaasheeda waa tabti maxamed siyaad bar waa tijaabo bakaartaada la gubay waa lagugu tijaabiye waag maxamed siyaad bar haddana wadadii baa laga xir waa lagugu tijaabiye in dadkaada gaajo u dhintaan say ku dhici kartaa baydhabo magaalo madaxtooyada dhabarkeeda dad degan inay gaajo u dhintaan say u dhici kartaa ووحي فرماجة وقلت لقل وكو تجابيه already وكو تجابيه تل عنيق النبي إني يدجي بس إنه واتاس
I'm very sorry waxaan niyad jabiyey tijaabadii maxamed siyaad barre iyo tijaabada farmaajo isu wada eg talaabada ugu dambaysoon hadda sugayna maxay tahay waxay tahay talaabada ugu dambaysoon sugayno dadkoo boqol loo duugo wax kaloo noo hartay ma jirto raxween wax kaloo u hartay ma jirto wiilka baydhabo joogo abaartu waa aragtay waa tijaabo gaajo in dadkaaga lagu dilo baydhabo waxba uga imaan waayaan waa tijaabo watii maxamed siyaad barre bakaarta lagaa gubaay ee dadka gaajada u dhadhaminayaan waa isla tii oo kale kufsiga gabdhaha imaanaya waxaa ku xigo boqol iyadoo leediin duug waxaa kusii xigaysa baydhabo magaalo tolka leeyahay baydhabo oo cabud waaq tuu taasaad sugaysaa waayo garbahaarey adaa lahaa cabud waaq tuu baa laga dhigay 30 sano ka hor xog baa lagaaga qaatay baryo ma ahayn garbahaarey wixii lagaaga qaatay dadkaaga guryahooda intii lagu gubaa la soo kordajiyay dad kale and that's what you're waiting for magaalada baydhabo ee awogay xuseen axmed dadkii dhisay uu ka mid ahaa gacantiisa ku dhisay ayaan maanta khalaas rajo la'aan ka taaganahay rajo la'aan baan ka taaganahay ma leh rajo baydhabo qofkii raxweyn oo baydhabo rajo kale hoo wallaahi way ku daysay baydhabo waa cabud waqto nothing more bas waay farmaajo cagaha soo dhiganayo britole madaxtooyaduna degaya nothing more you waiting for hadda shalay tolaana mukhtaar u oynay maanta boqolka dadka loo duugi doonaa ii sawiran taasaan ka oynaya waa idinka tagaaya walaalayaal hala taageero iyo ciidanka yaa taageeraya sugaysaa yaa taageera abaarta Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa maxaa keenay baydhabo in diyaaradda sokorta loogu keeno wadooyinka la xiray baa keentay simple as that nothing else marka walaalayaal sug I'm very sorry so waxaan idin leeyahay ani xaaladeedu waxay taagan tahay if you are black then don't be smart if you are smart then don't be a hero if you are a hero please forget to speak out never try to speak out but I will speak out codkaygu wuu socon doonaa absolute qaar badan hadin rajaynaya raxweyn waa ahludiin waa dad ilaahay aad ugu dhow aad iyo aad bay raxweyn ilaahay u aaminsan yihiin waana dad dagalka beerahooda ka soo gaa bilaa lacag dadka kale ku siiya oo ceeshkooda la cunaa soo markaa waxaa idin leeyahay ilaahaygi hortiisa intaasoo dhan u gasheen ilaahaygi aad hortiisa intaasoo abaala geysateen ha idin arxamo ilaahaygaas ha idin arxamo siiba gabdhaha reer baydhabo iyo reer baay iyo bakool ila baay iyo bakool gacanteena ku jirto shabeel gacanteena kuma jirto gadana ma hayno ilaahay baa idin maqan ilaahay qafuur raxiim waaye RRA ilaahay cudud la waaye ha ka dhigo RRA ilaahay ha ka dhigo dabaysh la arki waaye adduunka haligtay ilaahay niyo RRA garabkeeda ha galo ama ninkii ay ilintayda caawa dhibtayo waxaan arko waad og tahay isqor listiga niyo RRA isku dar wali wuu furan yahay ciidanka waa la qorayaa wali dhalinyaradu waa la qorayaa degma iyo gobol aysan joogin niyo RRA ma jirto haddii aad tahay nin raxan weyna ilintayduna ay ku dhibtay in adeer waxaan arkana aad aragto please and please yaysan ku cunin nimanka la dhaho aysan maskaxda kaa dilin cali wardheere cali awdhuun dheere general mahad general gafuure xasan xamaali xasan eelay shiiquna shaydaanuna raggaas intaysan ku gabagabaynin isqor waxaad ku cilbixi karto ood ku badbaadin karto hooyada iyo walaalaha deegaankaaga waa in maanta niyo RRA aad iska qorto wallahi alcadiim waa idin fadwoonaya ana idin fadwoonaya caaw wiilka isagoo RRA dhinta RRA sirkay waa isagoo leh wiilka dhinta wuxuu la mid yahay nin ku dhintay dagaalkii Uhud adoo ku dhintay bay kula mid tahay ahlu janna tahay oo wallahi ahlu janna tahay oo billahi ahlu janna tahay caawa adoo niyo RRA haday nafta ka baxdo oo farmaajo kufri ah gacantiisa aad ku dhimato dagaalkii Uhud nin ku dhinto kala la mid tahay waxaadna ku badbaadisay dhiigaaga hooyada
oo konton nin fuuli lahayd baterina ku guri lahayd cabud waa ka soo lugeeyay konton nin oo cabud wax ka soo lugeeyay hooyada bateri ku guri lahayd ayaa dhiigaaga ku badbaadisay dhibkana waxa ku keenay kuwa baarlamaanka fadhiya farmaajo kursiga ku fariisay adiga ma aha ha ogolaanin haddaad new RRA tahay inuu beritoole farmaajo soo dago baydhabo haddaad taas diido anoo ina naag iga qurux badan jirin madaxa hoos aadin maayo gabar kor madaxa u qaadaan noqonaya waan ku faani doonaa qoomiyada raxan weyn inaan ka dhashay ee boqortooyada eelay ee burha kaba degan waa ku faani doonaa intaan ifka ku noolahay laakiin hadday taas dhici weydo waxaad ogaanaysaa madaxayga hoos buu aadayaa waxaana hoos ka fiirin doonaa kuwa dad ugu falfoosha xun kuwa dad ugu liita ayaa anigoo ina marguusa oo taqaanid oo haybadaadii sharaftaadii ah anigoo boqortooyadii eelay ah anigoo dadkii ugu sareeyay ah ayaa hoos fiirin doona wiilka raxan weyno tala maanta gacantaaday ku jirtaa gabdhihiinuna gacantaaday ku jiraan laba mid aday ku taala ama iyadoo hoosta ka go'an oo dhiigu ka qulqulaya duugi doontaa adigana waa lagu gubi doonaa adoo taagan ama waadna badbaadin doontaa berina ana baydhabo u soo guuri doona gabar gayaan leh oo leh gay ay ku nasato ayaa noqon doona diidi mayno geerida intuu cadowgu jiro dacladeena kama dirnaxayno degta qorigu noo suuran wiilasha new RRA ilaahay idin guuleey gabdhaha new RRA ilaahay idin guuleey mac salaam qaar badan aan rajeynaa walaalahay habeen wanaagsan uurda wanaagsan